waxaad ogtihiin cabduha yar sanad buu joogaa gobolka sanadkaa uu joogo isku celcelis ahaan 2 bilood ama 3 bilood xafiiskiisu ma furin maalinta uu xafiiskiisu furan yahayna 10 askari baa hor jooga siduu yahay madaxweynaha shaqadii gobolka way kala xiranta waxaan ognahay habacsanaan baa ku timid laamihi ammaanka biliiska taana isaga ka dambeeya sidoo kale shacabku waxay ogyihiin dawladii hoose ee Boorama intuu cabdooy midee ma shaqeeyay waxa la waxa ka shaqeysana lama garanay cidda ka dambaysa fadhiga aan ugu wacno waxa weeye waa barsaaf gobolka midda kale maanta iyo shalay laba mas'uul ayaa laba isku duween ayaa xilkii loo kala wareejiyay ay dawladdu loo soo kala magacaabay laba boos labadii boos midna waxa dhici weeday in la kala wareejiyo oo mas'uuliyiintii xilkaasi loo soo magacaabay si loogu wareejin karin lahayd cidda ka dambaysa ee hawshaas ka socon lahaydna waxa weeye waa barsaaf gobolka maanta qof kastoo Boorama dhex jooga wuxuu garan karaa xaalad inuu gobolku galay xaalad fawdo oo kale oo nidaam dawli iyo mid maamul mid jir markay tolaayo barsaaf ku yimid halka isku duwaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha isagoo mas'uulkii xilka laga wareejinayay una joogin ayuu wuxuu yiri xilkii baan ku wareejiyay war mas'uulkii xilka laga wareejinayay ma joogee yaa xilka loo wareejinaya si laga wareejinaya meereeska horkeen bulsho aytaas dawladdu waxa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa leh haddii cabdo ay qas u soo igmatay inuu gobolka qaso shaqadii uu hayay ku daa haddii laakiin inuu gobolka hogaamiyo oo si sharci ku hogaamiyo aad soo igmatayna waxa weeye ninkaasi gobolkii uu qasay umadiina kulku ka soo joogsatay sida ugu dhaxsaa badan uga bedel sida xalayba sheegay waxa weeyaan xildhibaanadii heer qaran xalayba ka hadeen website ku jira barsaabku qaybinta uu ka wado gobolka wado mid indhaha laga qarsan kara maaha waxay gaadhay halkii ugu xumeed bay gaadhay waxay maraysaa inuu odayaasha iyo dhalinyarta isku dhigay imika bal nasiib darrada jirta labada mas'uul mid isagoo maqaarka kalena uu xilka u wareejiyay haddii ay isku dhacayaan ka mas'uul noqonaya berito xafiiska la isku qabsado ilaa mas'uulka hore xilka laga tirin leeyahay oo si sharci laga tirin hadduu bari yimaado oo la isku dhaco mas'uul darrada ayaa ka mas'uul midda kale dadka reer Boorama waxa la warninka barsaabka waad aragteen oo waad ku qanacday shaqadiisu waxay tahay waad u jeedaan inta lagama qarsado dulliga lama qarsado meel lagu soo wada jirto meel la saaro warkiisa barsaabka wallahi midda kale waxa soo baxday ugu laabiyay amniga amray in dadka la caburiyo saxaafada la caburiyo xurriyadda qowlka la caburiyo ma dhawi tolaaniga waxa lagu xidhay halka saldhig dhexe magaalada Boorama waxa lagu xidhay war dulmigii cadaalad darrada ka jirta gobolka iyo qaranka waxa laga bedelaa lagu xidhay taasna waxa ka dambeeyay taliyaha qaybtu sidoo noo sheegay wuxuu yiri arrinkiina waxa uu xidhay barsaabka ولي بوسوع لبضاء اللي يرتاح كذا halkay ku dhacday dulmigii cadaalad darrada qofka sheegay lagu xiro wadanka ma dictatorship bays mise abdo waa si gaar ah loogu soo diray reeraha wadalo de uu shaqaan ugu buuhaya mar kale waxa ku cililaya madaxweyne hadii aad rajo ka qabto ilaa bacraha ay nabadgeliyada iyo qaranimada ay sida loogu talagalay shaqeeyeen mas'uulka sida ugu dhaxsaha badan meeshii kale aad u igmanayso igmo ka qaxay gobolkan leenahay wabillahi tawfiiq marka hore waxaan ka tacsiinayaa bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan dadka deegaanka ku gobolka Awdal مسؤولك فرديد كان لصق بداي قبل كان أفضل وحوي مسؤولين تجمهورية الصومال برا صابدي اللي يسكون بدري هذه أن هاي دليل تجمهورية الصومال المهم كذي وحنا وأنا ما عداته مركي أمد حول السيران يوجدي يعني خبرت على سوق قبطي ما يركب مجال ذا ما يركب مجال ذا برعة يبرا صاف مجال ذا برعة مركي يقول رسي خبرت على سوق قبطي بدأ حول السيران بدك كيسك أوه ريبا وارتوح على المقرنين إن لبض المسؤول غير كيس ما يركب برا صاف مركب سوق قبطي يحركي مركب هو كل مال سيب مشان أنت هذيك الواقع عيو لو سوق بدل مجال ذا بورد فرنتي هرت مهمته كبار لو قدر لا تعصي هاي هذا نوع كده بيسي سيستم كبار صابني الله سيق بدل يروقه وأنا عدين تهذيله بشوية جمهورية الصومال إن كستي ودوقتها إلا ما تحصيه بحية سلوك حل وأنا ذكرك يكون مجيء حالة طوله يو سيدنا كتيرته رجعوا على المدى عويلي بعشر وقت كله تروح نقطة قيبي أو بتصل نقطة حقي صومالي كوري جبت قيبي يا قضاء قيبي أو بتصل نقطة رجعنا نقول حلنا على أسفل بدل باجرة دباتين بدل باجرة وحصل إنه حرمود كا مدحوينها قرنك يعيدوا يجمعين وحنا أستنتج كوباتاي مش هذا جمهورية الصومال واحد سويدي سمروا بعد هذا هذا كذا جمهورية الصومال عدالة هذا الصواب إلى بحي هذه قرنك الدمات وثقة رسمه تأثيره حكسي بشهادنا حكي غير
beelaha galbeedka iyo barigu ay tirsanayeen cadaaladdarooyinka ay tirsanayeen ayaa haddana waxa sii raacay in beeshiisii haddana cadaaladdarro hadda u sii sameeyey oo bulshooyintii maxaa yeelay gobollada dhexe jamhuuriyadda somalilan beesha dhexe ayaa loo tiriyaa madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda jarannada ciidanka iyo ku-xigeenadaba hal beer bay ka soo jeedaan oo beesha dhexe weyn ayadoo taasi ay taagan tahay oo culayskaas ka saaran yahay dhammaan jamhuuriyadda somalilan oo beelaha galbeedku ay qabaan cabasho xooggan bariga jamhuuriyadda somalilandna cabasho xooggan ay qabaan oo la isweydiinayo jamhuuriyadda somalilan ma beesha dhaxo baa miyayna ahayn jamhuuriyadda somalilan wax lagu midoobay bulshooyinka reer somalilan ku midoob markaa fikirkii ahaa loo tirinayey beesha dhexe inay hoggaankii qaranka isku fuuqsatay ayaa haddana waxaa caddaatay madaxweyne siiraayo inuu haddana habar jeclo usii hilinay taasina waa nasiib darro labaad runtiina waxaan aaminsanahay taarikhda xusii doonta barasaabkan gobolka odolna wuxuu ku sifoobay barasaabkii abid soo maray jamhuuriyadda somalilan barasaabkii ugu liitay igu sifoobay marka waxaan u sheegaynaa dadka nabadda jecel dadka dowladnimada jecel dadka qarannimada jecel mas-uulkaasi shaqadiisii maayo shaqo kale haya asalaamu calaykum waraxmatullahi